Somaliland waxay sanadkii labaad oo xiriir ah tallaabo u qaaday dhinaca aqoonsi raadiska ama inay si buuxda uga baxdo Soomaaliya. maadaama aanay Somaliland haysan dood maangal ah oo dalka lagu kala jari karo, waxay Hargeysa cid walba isku dayaysaa inay u samayso ballanqaad faa'iido ah. tusaale, bishii Janaayo 2024 Somaliland waxay aqoonsi weydiisatay dowladda waddanka Itoobiya. waxaa la weydiiyey maxaan idinka faa'iideynaa haddii aan idin aqoonsano, waxayna Somaliland ku jawaabtay bad ayaan idin siinaynaa maadaama aad bad la'aan tihiin. sidaas ayuuna ku dhacay heshiiskii la fashiliyey ee Muuse Biixi iyo Abiy Axmed. bixintii badda waa laga hortagay, Itoobiyana waa u bareeri weysa aqoonsiga. mar kale Hargeysa waxay aqoonsi weydiisatay Israa'iil. isla su'aasha Itoobiya oo kale ayaa la weydiiyey oo ahayd maxaan ka faa'iideynaa aqoonsigiina, waxayna Somaliland ku jawaabtay waxaan idin haynaa dhul aad dejin kartaan malaayiinta reer Falastiin ee aad ka soo barakicinaysaan marinka Gaza. tilaabadan waxay iyaduna u baahan doontaa ka hortag maadaama ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyaba si weyn u diidan yihiin xasuuqa reer Falastiin iyo in la qaato dhulkooda iyagana la masaafuriyo. Soomaalidu waa isku diin, waa isku dhaqan, waa isku luuqad, waana isku midab. sidaa awgeed Somaliland ma haysato dood fudud oo dalka lagu kala jari karo. adduunku aqoonsi kuma bixiyo dad ayaa nagala dilay 40 sano ka hor. waa dhif ummadan dhexdeeda isdilin markaad dib u akhriso taariikhda dowladuhu soo mareen. hadda Somaliland ictiraafkeedu ma lahan dood ee wuxuu leeyahay dalab la yiraahdo nataata nana aqoonsada. shalay waxa uu ahaa bad ma rabtaan, maanta dhulka, berrina haddii ay dal kale aqoonsi ka rabaan waa inay miiska keenaan wax kale oo ay bixiyaan si aqoonsigooda loogu bareero.